tababarkan way soo agaasintay Akademiga Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA oo ay ka faa'iideysteen 643 macallin laguna baranayay dib u adeegsiga dhigaalka iyo horumarinta afka Soomaaliga ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Aqoon-yahano, maamulayaasha iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha iyo iskuulaadka ku yaala magaalada Muqdisho iyo qalinleyda Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay xiritaanka tababarkan. Agaasimaha horumarinta adeega waxbarashada agaasinka waxbarashada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdi oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa sheegay in aqoon-yahanada dhalinyarada ah ee jaamacadaha ka baxay inay ku adag tahay adeegsiga afka Soomaaliga loogana baahan yahay inay horumariyaan afkooda hooyo. Ardada Soomaaliyeed iyagoo dhameeyay ilaa darajooyinka kala duwan ee jaamacadaha inay ku adag tahay in af Soomaaliga ay ku qoraan qoraal saxan. fariimaha ay bulshada la wadaagaan qaladaad badan oo ka jiro. waxaan rabnaa marka anaga ugu mahadnaqayna akademiyada cilmigii aad halkan ka qaadateen adika iyo difacadiida ka horeeyba in la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardada aad mas'uulka ka tihiin ee qarankan aad u soo saareysaan. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay dadaalka Akademiga Goboleedka Afka Soomaaliga AGA ay ku bixinayso tayada macallimiinta wax ka dhiga iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee ku yaala dalka. waxaan idin leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan ee noogu qabateen seminaarka maanta. annagana waxaan rajaynaynaa in macallimiinta iyo inta meeshan joogtaba ee arrintan dib ula noqon doono faa'iidada aan maanta gaaranay noqon doonto mid aad u qiimo badan. Cabdalla Mansuur oo ah gudoomiyaha Akademiga Goboleedka Afka Soomaaliga AGA oo soo xiray tababarkan ayaa ka warbixiyay macallimiinta ka faa'iideystay tababarkan iyo sida ay uga faa'iideyn karaan ardayda ay wax barayaan. waana guud ahaan waxaan haynaa shantan dufcadood haddii aan isku wada darno wadajirkoodu waa 600 iyo shaqaalow 643 macallin ayaa maaragtay tababarkan ka faa'iideysteen. aan rajaynayo inay ka faa'iideysteen. waa hubaa in hal maalin aan kifaaya ahayn walow laydin dhibiso wax iyo galabba halkaan maaragtay aad fadhidaan, laakiin tan ma noqonayso hadduu alle idmo xiriirkeennii in aan sii wadno. waa hubaa wax badan oo weli mugdi ku jira. marka sida daayoba aan sheegay fadlan nala soo xiriira. waxaan leenahay website ama si wixii su'aalo ah inaan isweydaarsano.